السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكل وعنا وناقصن ملو بد كسكتين كسر هذا برامج كورك عالم كي وربحنا دي الدنيا ومال والبعض كده وطان شبكة ورك ورقات هيب وتضبط بشا كوي ثماناد نوفمبر سنة لبض كون استدي تمنك مالنا ما أربعة داودي البرامج كحنا كسر قادنا وركي وربحنا دي جوا وينا عالم كب qodobada ugu waaweyn ee ardayda barnaamijkeedii ugu soo gudbin doonana waxa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee arintii marxuum Jamaal Khashoggi iyo wararka arinta ku soo kordhay iyadoo la soo sheegayo in boqortooyada Sacuudiga ay malaayiin dollar oo diya ah markaa ay u balqaaday qoyskii uu ka geeriyooday marxuumka warbixin ayaan idiga haynaa. waxaan kala daawadayaal barnaamijkeedii ugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashadii wadanka Mareykanka Ilhaan Cumar oo ka mid noqotay aqalka baarlamaanka wadankaasi Mareykanka kadib markii ay guul weyn gaartay iyo guul daradii dhinaca xisbiga madaxweyne Donald Trump ee ka soo gaartay doorashadaas ayaan daawadayaal barnaamijka ku soo gudbin doonaa. warbixinada kale ee daawad doontaan waxa ka mid noqon doona Ingiriiska oo walwal xoogan ka muujinaya sirdoonka sii kordhaya ee Ruushka uu ku leeyahay magaalada London. dowladda wadanka Qatar oo markii ugu horeysay ka hadashay saameynta ay ku yeelatay cilaaqaadkii ay u jiraan wadamada Khaliijka, xiriirka wadamada Carabta iyo sidoo kale kan Yahuudda oo sii kordhaya iyo wasiir heer sare oo Yahuudda ka tirsan oo lagu arkay wadanka Oman. madaxweynaha wadankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo noqday geesigii ugu weynaa ee si weyn ugu horyimid dowladda Mareykanka go'aanka ka gaartay Iran ay ku cunuqabateynayso shidaalka wadanka. fariin naxdin ku abuurtay Mareykanka ayuu u diray dalkaasi. dowladda wadanka Mareykankana waxa ay baajisay kulankii la filayay madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay wada yeeshaan. arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli xiisada labadaas wadan ay aad markaa u sii kordhayso. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal barnaamijka ugu soo gudbin doonaa haddii eebahay noo saamaxo ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wararka caalamka iyo warbixinadii dunida ayna ku bilaabano daawadayaal. wadanka Turkiga wali waxa ka soconaya baaritaanka la xiriira kiiska marxuum Jamaal Khashoggi. Turkiga waxay diidan yihiin in gabi ahaanba ay kiiskaas xiraan inta cadeymo rasmi ah laga helayo. waxa ay Turkigu markaa ay doonayaan in la helo meydka marxuum Jamaal Khashoggi in Sacuudiga lagula xisaabtamo dhibaatadii uu ka geystay wadanka Turkiga. laakiin Sacuudigu waxa uu doonayaa inuu sameeyo wax walba oo uu isku badbaadinayo. intaan u guda galin arrintaas warar iyo warbixino cajiib ah ayaa laga helayaa qaabkii Sacuudigu ay isugu dayeen in kiiskan u daboolaan. hadda saxaafadda Turkiga waxa ay warinaysaa in shaqaalaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ay isku dayeen inay burburiyaan kaamirooyinka CCTV-ga si ay ugu caawiso inay daboolaan dilka marxuumka. wargeyska dowladda taageere ee Daily Sabah la yiraahdo waxa uu bagiisa hore ku soo qoray in Sacuudiga ay ku guuleysteen in ay kaamirooyinka ka saaraan gudaha qunsuliyadda maalintii uu dilka dhacayay, laakiin waxay kaloo isku dayeen inay burburiyaan kaamirooyinka booliiska ee ku yaala banaanka dhismaha qunsuliyadda. waxa uu kaloo wargeysku sheegay in 6 Oktoobar kadib dilka marxuumka ay koox shaqaalaha qunsuliyadda ka tirsan ay isku dayeen in ay barnaamijyada lagu jabsado muuqaalada kaamirooyinka markaa ku tirtiraan, laakiin way awoodi waayeen iyaga oo waliba arkayay muuqaalo muujinaya marxuumka oo qunsuliyadda sii galaya iyo raggii falka dilka geystay oo iyagana qunsuliyadda galaya, laakiin arrimaha oo dhan wax way ka qaban waayeen. Sacuudiga wax walba ayuu u sameeyay inuu daboolo dambigan, laakiin Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu wanaagsan ee dhanka baaritaanka ayaa wax walba oo ay kooxda Turkigu sameeyaan banaanka soo dhagayay. xataa marka laga tago kooxdii 15 ahayd ee dilka u geysatay marxuumka, waxay Turkigu ogaadeen in kooxdii Sacuudiga ay baarayaasha ay ku sheegeen ay Istanbul u soo direen ay ahaayeen kuwo qabiiriin ku ah dawladda dambiyada. waana tan la rumaysan yahay inay keentay in Turkiga cadeymo buuxa ka waayay gudaha qunsuliyadda iyo guriga qunsulka, maadaama ay xilli hore kasii baabiyeen sida wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeeyay ee shalay barnaamijkeena ku daawateen. dhinaca kale saxaafadda ayaa hadda waxay baahinaysaa in saraakiisha Turkigu ay hadda xaqiijin karaan in madaxii CIA-da wadanka Mareykanka haweeneyda la yiraahdo Gina Haspel ay daawatay dhammaan cadeymaha la xiriira qaabkii marxuumkan Khashoggi loogu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Haspel oo Turkiga ku sugnay toddobaadkii hore si cadeymahaas u aragto ayay madaxweyne Donald Trump uga warbixisay waxaabihii la tusiyay kadib markii ay Washington DC ku laabatay. TV-ga Al Jazeera ayaa waxa uu tabinayaa in waxyaabaha madaxa CIA-da Mareykanka la tusay ay ka mid yihiin wariyahan oo markaa codkiisa la maqlayay iyada oo si xun loo jirdilayo
isla mar ahaantana nafta looga qaadayo. haddaba daawadayaal warar kale oo waaweyn oo arintan la xiriira ayay maanta saxaafadu tabinaysaa. waxaa kamid ah in boqortooyada Sacuudigu ay ku wargelisay Turkiga in ay bixin doonto lacag diya oo ay sii doonto qoyskii iyo gabadhii u doonanayd marxuumka ay qunsuliyadooda Turkiga ku dileen ee Jamal Khashoggi. sida waxa laga soo xigtay sargaal Turkiga. sargaalka Turkiga ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera Talaadadii shalay in Sacuudiga uu bixinayo dhaqaalo diya ah sida ay diinta Islaamku qabto, taas oo ah mid ku saabsan dilka marxuumka iyo xataa dhibaateyntii jirkiisa loo geystay. waxaana lacagta la siinayaa wiilashii uu marxuumku dhalay iyo gabadhii u doonanayd ee dalka Turkiga kasoo jeeda ee Khadija Nkikis la yiraahdo. wiilasha marxuumka oo la kala yiraahdo Saalax iyo Abdullah oo waraysi siinaya TV-ga CNN-ka ayaa sheegay inay doonayaan in meydka aabahood loo soo gacan geliyo ama lagu soo wareejiyo si ay ugu aasaan magaalada Madiina ee dalkaasi oo halkii uu ku dhashay. waxaa kaloo ay sheegeen inay aaminsan yihiin in dadaalka Maxamed bin Salmaan uu wado ay tahay mid cadaalad uu ku heli doono aabahood. dilka naxariis darrada ahaa ee Khashoggi ayaa xaalad xun dhex geliyay Maxamed bin Salmaan, kaasoo la aaminsan yahay in shirqoolka uu ka dambeeyay. laakiin dowladda Turkiga ayaana ilaa haatan wax jawaab ka bixin arrinta ay Sacuudigu soo bandhigeen. sidaa oo ay tahay ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu ku celiyay in dalkiisa uusan ka hari doonin ilaa iyo inta adduunka uu tusi doono halka uu kiiskan ku dhamaado. haddaba wararka arrimaha la soo xiriira ama wararka qodobadan la xiriira dib ayaan idinla socodsiin doonaa haddii way baahinoo saamaxo. boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa booqasho 7 maalin qaadanaysa ku kala bixinaya magaalooyinka gudaha wadankiisa sida ay ku waramayso wakaalada wararka Reuters. saxaafada gudaha Sacuudiga ayaa sidoo kale warinaya in 82 jirkan uu markii ugu horeysay sameynayo dhaqdhaqaaq tan iyo sanadkii 2015 markaas oo wiilkiisa Maxamed bin Salmaan la wareegay awoodda ugu badan ee boqortooyada. meelaha uu booqanayo waxaa kamid ah magaalooyinka Qaasim iyo Hayl oo labaduba ku yaala waqooyi galbeed magaalada Riyaad. waxa uu dah furi doonaa mashruucyo dhanka caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale dhismaha. si kastaba arrintan waxay imaanaysaa xilli boqortooyada Sacuudigu cadaadis xoogan lagu saarayo arrinta dilka marxuum Jamal Khashoggi iyadoo Maxamed bin Salmaan arrinta lagu hayo. boqor Salmaan oo arrintan ka jawaabaya ayaana malaynaya inuu hoos u dhigayo awoodda wiilkiisa, taasoo keentay xataa inuu dah furo mashruucyadan waaweyn oo wiilkiisa kasoo muuqan jiray, laakiin lama oga haddii uu socdaalkaas ku weheli doono Maxamed bin Salmaan. waa hagaag daawadayaal dowladda wadanka Mareykanka dhawaatan cunaqabatayntii ugu xooganayd ayaa ay ku bilowday dowladda wadankaasi Iran. laakiin dowladaha awoodda kule ee Mareykanka la tartama ayaa doonaya inay cunaqabatayntaas ay buriyaan. Iran naftigooda ayaa waxay sheegeen in aysan cunaqabatayntaas guuleysan doonin. Ruushka iyo sidoo kale dowladda Shiinaha ayaanan sidii la filayay aan uga hadlin arrintan. laakiin madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka Mareykanka ku cunaqabateeyay Iran, isagoo tilmaamay in dalkiisa uusan u hogaansami doonin go'aanka oo aan ahayn mid cadaalad ayuu yiri. cunaqabataynta Mareykanku uu saaray Iran waa mid qalad ah, annagana waan ka soo horjeednaa, waana cadaalad darro, mana doonayno inaan ku noolaano adduun xaq jira, ayuu madaxweynaha wadanka Turkiga ka sheegay magaalada Ankara ee caasimadda wadankaasi Turkiga. fariintiisa ayaa imaanaysa xilli xukuumadda Washington ay toddobaadkan dhaqan gelisay wejigii labaad ee cunaqabataynta la saaray Iran oo qorshuhu yahay in shidaalka wadanka dhoofitiisa zero la geeyo ama eber la geeyo. 8 wadan oo Turkiga uu kamid yahay ayaana loo fasaxay inay sii wada karaan shidaalka oo ay ka helaan Iran. wargeyska dowladda Turkiga taageere ee Daily Sabahna waxa uu qoray in madaxweyne Erdogan uu tilmaamay in Turkiga uu wax ka badan 10 bilyan oo cubic meter oo gaaska dabiiciga uu markaa kasoo dhoofsado wadanka Iran, oo xataa haddii Mareykanka uusan go'aankan soo saari lahayn laba jeerba Turkiga uu sii wadi lahaa shidaalka wadanka kasoo dhoofsado. kalabar shidaalka ayaa Turkiga uga imaada dalka Iran, waana sababta keentay inay si weyn u diidaan go'aanka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa horey ugu diray xukuumadda Washington in ay markaa ku gardaroon Iran. waxa uu yiri godoominta Iran waa mid khatar ah oo halisa. wasiirka uu ku sugan wadanka Japan ayaa hadalkiisa ku daray in Mareykanka uu ku gardaroonayo shacabka Iran ayna halis tahay in la bartilmaameeyo dal gooniya. Turkiga wuxuu ka soo horjeedaa cunaqabatayntaas, mana aaminsanin natiijo walba oo ka soo baxda inay guul u keenayso cunaqabataynta, ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka oo sii hadliyay ayaa yiri waxay la tahay in intii cunaqabataynta la sameyn lahaa ay ka wanaagsanaa lahayd in la wada hadlo, taas oo faa'iido weyn u lahaa lahayd labada dhinac. Turkiga ayaa si weyn ugu adkaysta go'aankiisa,
waan iibsanaynaa shidaalka Iran waana soo dhoofsan doonaa alaabaha dalka maxaad kaloo haysaan ayaa uu yiri wasiirku. Trump oo ka baxay heshiiskii adduunka iyo Iran ay ka gaareen arrimaha nuclear-ka ayaa cunaqabateyntan cusub saaray, laakiin Turkiga ayaa noqday dalka ugu weyn sida markaas cad ugu jawaabay maamulka Trump. wararka kala daawadayaal haddaynu kusii socno isla bariga dhexe, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in uu ka shalaynayo khilaafka kala dhexeeya dalalka Carabta, laakiin waxa uu sheegay in dhibaatadaas ay ka gudbi doonaan. isagoo ka hor hadlayay kulankii guddiga shurada ee Qatar ayaa waxa uu Sheikh Tamim tilmaamay in wadankiisa uu markaas sii wadayo horumarinta soo saarka saliidda iyo gaaska si uu heer sare ugu gaaro dhanka dhoofinta gaaska dabiiciga ee adduunka. taariikhda ayaa ina bartay in aan ka gudubno dhibaatada, laakiin haddii ay u maareyn lahaayeen si xun, laga yaabee in arrintan ay reebi lahayd saameyn muddo dheer, ayuu Tamim sheegay. mar uu ka hadlayay khilaafka dalalka gacanka ayuu amiirka wadanka Qatar waxa uu yiri waa wax laga xumaado sii socoshada dhibaatada gacanka, taasoo hormud u noqotay guuldaradii golaha iskaashiga gacanka ee GCC loo soo gaabiyo, isla markaana wiiqday awoodii iyo wadajirkii ay u wajihi lahaayeen caqabadaha, hanjabaadaha iyo doorka horumarinta ee gobolka buu yiri. mar uu ka hadlayay dhinaca dhaqaalaha wadanka Qatar ayuu amiir Sheikh Tamim yiri in sanadkii lasoo dhaafay uu koray dhaqaalaha dalkiisa, gaar ahaan dhanka dhoofinta ee dibadda wax ka badan 18%, waxaana hoos u dhaca buu yiri lacagihii qarash gareynta wax ka badan 20%. lacagta dalalka gacanka ayaa kor u kacday tan iyo markii uu bilowday khilaafka dhaqaale ee dalalka u dhexeeya, waxaana Qatar ay dadaal u gashay in arrimahaas ay ka hoos baxdo, waana ay ku guuleysteen sida uu Sheikh Tamim sheegay. 5 bishii June 2017 Saudi Arabia, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kii dhaqaalaba u jiray Qatar, waxa ay ka xirteen hawada, dhulka iyo badda. waxa ay xukuumadda Doha ku eedeeyeen in ay taageerto kooxo ay ugu yeereen argagixiso, iyo sidoo kale dowladda Iran ayna ka baxeen heshiiska 2014 arrimaha ay ka gaareen dalalka gacanka ku yaala ee GCC. laakiin xukuumadda Doha ayaa diiday dhammaan eedeymaha, waxay sheegtay inay ilaalin doonto xornimada dalkeeda. Mareykanka ayaa isku dayay inuu xalliyo khilaafka 60 dal ee gacanka cadmeed, taas oo dhibaato ku ah howlgalkiisa ama qorshihiisa ka dhanka Iran. Qatar ayaa ah halka saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe uu ku yaalo, waana takeetay in Mareykanka uu arrintan dadaal ku bixiyo in la xalliyo. si kastaba, Maxamed bin Salmaan oo la xoogan ugu jiray in dalkan xiriirka loo jiro ayaa haatan garwaaqsaday in Qatar loo baahan yahay, waxaana uu marar badan saxaafadda ka hor ammaanay Qatar oo uu ku sheegay inay tahay dowlad wanaagsan oo awood leh kana dhalaashay buu yiri horumaradii ay tiigsanaysay. laakiin arrintu waa mid uu ku doonayo in xiisada taagan uu ku xaliyo si loo hirgeliyo qorshaha ka dhanka Iran iyo iskaashi dhexmara dalalka Carabta iyo Yahuudda. inkastoo Sacuudigu marar badan sheegay inaanan loo dhaweyn xal laga gaaro khilaafka, haddana Maxamed bin Salmaan waxa uu hormuud u yahay qorshaha Mareykanka ee Yahuudda dal buuxda lagu aqoonsanayo iyo aasaasadda ciidamada Carab NATO oo markaa isbahaysi ciidan oo dalalkaasi ku midaysan yihiin oo lagu cabsi gelinayo dowladda Iran. dhinaca kale waxaa si weyn u muuqanaysa in ay isku dhawaashihii ugu weynaa sameynayaan Carabta iyo Yahuudda, inkastoo dalka Jordan ama Urdun uu diidan yahay in Yahuudda uu kasii jaaro beeraha dhawaantan heshiiskoodu dhammaanayo Baquura iyo Alqamr. haddana waxaa muuqata in qorshaha Yahuudda dal madax bannaan loogu aqoonsanayo oo dhulka Falastiin ay ka mid tahay magaalada Qudus loo siinayo Yahuudda ay tahay mid aad u sii xoogeysanaya. hadda ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada Yahuudda waxa ay ku sugan yihiin wadanka Cumaan, waxaana wasiirka dhinaca socdaalka iyo sirdoonka ninka la yiraahdo Israel Katz uu markaa kulamo la leeyahay madaxda dowladda Cumaan, sida ay ku waramayso wakaalada wararka ee AFP. waxay ka wada hadlayaan arrimo ku aadan nabadda bariga dhexe ayaa lagu yiri iyo heshiisyo waaweyn oo dhinacyada dhexmara oo markaa ku aadan in cilaaqaadkii wadamada ee bariga dhexe la saxo ayaa lagu yiri warbixintan ay qortay wakaalada wararka AFP oo laga soo xigtay saraakiisha wadanka. waxa uu ka mid yahay saraakiishii ugu heerka sareeyay Yahuudda ka soo jeeda ee wadan Caraba markaa ku taga, iyadoo oo ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu uu xilli hore tagay ama uu booqday wadankaasi Cumaan, isagoo wada hadal la yeeshay suldaanka wadanka Suldaan Qaboos
oo uu kala hadlay arrimo dhowr ah. Horey ayaa wafuud ka socotay Yuhuudda waxa ay booqasho ugu kala tageen wadamada Imaaraadka iyo sidoo kale boqortooyada Sacuudiga, ayaga oo arrimaha amaba doorkooda ugu weyn ay raadinayaan ay tahay isku soo dhawaasho Carabta iyo Yuhuudda dhexmarta. laakiin arrimahooda dhan waxay ku soo aadayaan xilli Yuhuuddu ay sii wado dhul ballaarsi iyo in ay xoog ku qabsato deegaanada daanta galbeed ee dalka Falastiin. haatan Yuhuudda waxay dadka ku amartay in ay ka baxaan guryo ay degan yihiin dad shacaba iyo iskuul hoose oo ku yaala xaafadda Musaafiriyata ee galbeed waa daanta galbeed. Yuhuudda ayaa burburinaysa dhulkaas iyadoo doonaysa inay xoog kula wareegto, waana qayb ka mid ah deegaanada ay isku fidinayso. dhinaca kale Yuhuudda waxa ay kordhisay weerarada ay ku hayso masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem ama Qudus iyo masaajidka Ibrahimi oo ku yaala magaalada Hebron oo daanta galbeed. sidaa waxaa sheegaya wasiirka diinta iyo awqaafta ee Falastiin Yusuf Edias ninka la yiraahdo. sida wasiirku sheegay, ciidamada Yuhuudda ayaa geystay wax ka badan 30 xadgudub gudaha masaajidka Al-Aqsa, waliba marka aadaanka salaada uu soconayo. sidoo kale wax ka badan 50 mar ay qashqashaad ka geysteen masaajidka Ibrahimi bishii la soo dhaafay ee October. wasiirka waxa uu ka digay in dhibaatooyinka halista ee ka dhanka ah masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem iyo masaajidka Ibrahimi qayb ka yihiin qorshayaasha ay dejiyeen Yuhuudda ay ku doonayaan in halka ay xoog ugu qabsadaan. وهاجاك داوديال لشبكة ورقة ورقات هي بعد نقدر داونيسان مدحونها وضع أمريكا دونالد ترامب وحنا وشاقين إنه حريركي جنعسي وجري دلك موريتانيا وكم إذا دلك أفريقيا دقاله وسوكريو أريتان أياب مركا باللابن سنة كصوص وتسدى وزارة جنعسي أمريكا كل باقي أريتان أيا قيب كاه عدد كدولة موريتانيا لو صاريو إن أي ترترت نظام كأدونسج دلك إذا كجرة midowga Afrika ayaana sheegay in dalkan uu sadhaqa gelin la dagaalanka adoonnimada ayna taageerayaan dad kale adoonsada oo dalka ku sugan. dowladda Mauritania oo ka jawaabtay go'aanka Mareykanka waxay sheegtay inay tahay mid aan wax macnaah u sameyneynin in laga cunaqabatayo ama laga hor istaago inuu ka faa'iideysto satuuqa ganacsiga ee Mareykanka ee Afrika ugu talagalay. waxaan ahay bay yiraahdeen dowlad la dagaalamaysa adoonsiga annaga oo wax taageeraan ka helin Mareykanka. sida waxa laga soo xogtay wasiirka wasaaradda dhaqanka ee Mauritania Sidi Mohamed Ould Mohamed. goorma ayuu maamulka Mareykanku la dagaalamaya adoonsiga isaga ayaaba arintaas sameeyay ayuu wasiirka u sheegay saxaafadda. hadalkaas oo si weyn ugu weerarayay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo dhinaca dadka soo galootiga si weyn uga soo horjeeda. miyuu Trump go'aan ka gaari karaa arrintan haddii uu haysto heshiis ku kacaya $110 bilyan ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka oo ku maadeysanaya madaxweyne Trump oo aanan wax tallaabo ka qaadin ama aan xiriirka ganacsi u jirin Sacuudiga oo loo haysto in marxuum Khashoggi uu ku dilay qunsuliyadii ay Sacuudiga ku lahaayeen magaalada Istanbul 2 bisha October. hagaaga daawadayaal kulankii la filayay in xogayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka Mark Pompeo iyo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ay yeeshaan maalimada Khamiista kaas oo ka dhici lahaa magaalada New York ayaa markaa baaqday waxaana la sheegay in dib laga soo sheegi doono xilliga uu dhacayo. sida waxa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Mareykanka. waxaa lagu sheegay in wada hadalka uu sii socon doono. arrintanna waxa ay ku soo aadaysaa xilli la soo sheegayo in cabsi laga qabo in sidoo kale uu dib u dhaco wada hadalkii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay arrintan ka yeelan lahaayeen. labada wadan ayaa waxa la soo sheegayaa in xiisad cusub ay ka dhex dilaacday iyada oo Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale waddanka Japan la soo sheegayo in ay sameynayaan dowlatus military taas oo cabsi iyo warwalba ku ah Kuuriyada Waqooyi isla markaana u aragta mid looga soo horjeedo heshiiskii dhinacyada ama wadamada ay gaareen. dhinaca kalena kala bar dadka Ruushka ka soo jeeda ee ku nool magaalada London ayaa la ogaaday inay basaasiin u yihiin maamulka Kremlinka ama aqalka looga taliyo waddanka Ruushka waana tiro 5 mar ka badan sodoonkii ay Moscow ku lahayd dalkaas 8 sano ka hor. sida waxa sheegaysa warbixin cusub. warbixintan oo lagu saleeyay ama lagu ogaaday kooxaha mucaaradka ku ah maamulka Ruushka kuwa soo goostay iyo sirdoon qarsoon ayaa shaacinaysa in Ruushka uu weli maskaxda ku hayo dagaalka ka dhanka UK. qiyaasta ayaa sheegaysa in 150,000 oo Ruushiyaan oo ku nool London ay kala bar yihiin kuwa sirdoon ama basaas ayaa lagu yiri warbixintan UK ka soo baxday. baarayaasha arrintan ogaaday ayaa dowladda ugu yeeraya in ay kordhiyaan dadaalada ay ku bartilmaameysanayaan sirdoonka Ruushka si dadka dalkaasi ay nabad ugu noolaadaan. labadan wadan ayaa waxaa ka dhaxeeya xiisad diblomaasiyadeed oo aad markaa u xun.
dhinaca wadanka Mareykanka doorashadii ayaa la soo gabagabeeyay daawadayaal waxaana sidii la filayay xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleystay aqlabiyada aqalka sanadka ee wadankaasi Mareykanka arrintan oo runtii hoos u dhac weyn ku ah maamulka madaxweyne Donald Trump dimuqraadiga ayaase waxa ay guuldaro kala kulmeen oo laba kursi ay dhumiyeen aqalka sanadka iyagoo ka helay 38 halka republicanka amaba xisbiga madaxweyne Donald Trump ay ka heleen 50 waxaana ay haystaan 42 halka xisbiga markaas dimuqraadigana ay 23 kursi ka haystaan laakiin meesha lagu kala baxay waa dhinaca kuraasta aqalka markaasi baarlamaanka oo xisbiga markaasi dimuqraadiga ayaa si weyn ugu guuleystay oo qabsaday guud ahaanba aqlabiyadii aqalka dadka guuleystay guusha weyn usoo hoyay sida gaarka dadka Soomaaliyeed ay isha uga hayeen waxa ay ahayd Ilhaan Cumar taas oo mar kale taariikh ka dhigtay wadanka Mareykanka iyadoo oo Ilhaan Cumar ay noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horeysay ee ku biirta aqalka baarlamaanka ama aqalka Congress-ka ee wadankaas Mareykanka Ilhaan Cumar oo 36 sano jira ayaa taariikh sameysay kadib markii ay noqotay qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo xildhibaan ka noqda dalka Mareykanka gabadhan oo ka soo barakacday Soomaaliya iyadoo 8 sano jira ayaa waxa ay nolosheeda ku qaadatay bilowgeedii dadaab xiriyaha qaxootiga ee Kenya waxaana ay Mareykan tagtay iyada oo 12 sano jira runtii dadaal xoogan ayayna u gashay in booskan istaagto dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee wadanka Mareykanka ayaana kaalin weyn ka qaatay in gabadhan Ilhaan ay xilkan ku soo baxdo laakiin daawadayaal qaybta labaad ee barnaamijka iyo wariyaha kale ee shabakada wararka ee warqaad tube Xasan Weli ayaa waxaan ku soo gudbin doonaa falaqeyn walba oo ku saabsan doorashadan wadanka Mareykanka waa doorashada xilliga dhexe ee wadanka Mareykanka iyo guulihii waaweynaa ee shakhsiyaadka muslimiinta ay halka ka soo hooyeen iyo sida ay xisbiyada u kala baxeen waxaan kaloo soo gudbin doonaa oo aan barnaamijkaas ku falaqeyn doonaa haddii ay noo saamaxo faragelintii laga cabsanayay in wadamada Shiinaha ama wadanka Ruushka uu doorashada ku sameeyo oo madaxweyne Donald Trump uu marar badan sheegay waxyaabaha ka jira iyo qaabkii loola dagaalamay arrimaha oo warbixino xasaasi ay ka soo baxayaan barnaamijkaas qaybta labaad ayaan idiga soo gudbin doonaa haddii ay noo saamaxo laakiin daawadayaal qaybta koowaad ee barnaamijka oo aan runtii waqti fara badan ku qaadanay maadaama qodobada ay badnaayeen intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka lamid intaan ku kulmi doonaa waxaan idiga tegaynaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu